dareen xooggan ayay dadweynaha reer Awdal ee magaalada Boorama ay ku cabireen khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay dalka Mareykanka safarkiisii waxaana ay khudbaddaasi ku tilmaameen inay tahay mid soo dhaweynaysa ictiraafka ummadda reer Soomaaliland muddada 30 sano ay raadinayay waxaana dadweynuhu ay aad u soo dhaweeyeen khudbaddaasi oo ay ku tilmaameen inay waqtigeedii ku soo beegantay isla markaasina uu madaxweynuhu dadaal ballaaran u galay sidii uu meelo fog u gaarsiin lahaa qadiyadda reer Soomaaliland dadweynaha reer Awdal gaar ahaan magaalada Boorama waxay ku tilmaameen inay arrintani tahay mid mucjiso ah isla markaasina ay ku faraxsan yihiin dadweynaha reer Awdal sida madaxweynuhu uu u dhigay qadiyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan leeyahay maanta inuu Mareykanka tago oo uu maanta xaydeede khudbadiisa halka uu ka soo jeediyo oo ummadiisuna maanta way ku faraxsan tahay lixda gobol ee Soomaaliland ilaa Seylac ilaa halka ugu dambeysay xaydeede Laascaanood ilaa Ceerigaaba ilaa Badhan waa lagu faraxsan yahay waxaan leeyahay madaxweyne waan ku soo dhaweynaynaa waxaan u arkay waxay ahayd khudbad aad u qiimo sareysa oo loo baahnaa waqtigeedina timiday waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ee wasiirada leh ee ganacsatada leh waxa aad ii soo jiitay qodobkii ahaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeyay wuxuu batalayaa oo kale ka dhigan yahay sida Soomaaliland iyo Soomaaliya runtii waa meel aad iyo aad qodob aad fiican buu ahaa oo ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xalay wuxuu ka jeediyay manhajka heritage khudbad dhinacyo badan taabanaysa khudbadaas oo isku jirtay horumarinta Soomaaliland gaadhay iyo waxqabadkeeda waxay ahayd khudbad lagu dirsado shacabka Soomaaliland ku faanaan tab madaxweynaha ka jeediyay waxaan leeyahay madaxweynaha ka sii wad wata safarkaas wuxuu ahaa safar taariikhi ah oo ku soo kordhay dhammaan geyga Soomaaliland khudbadda madaxweynaha waxa iga soo baxay in maxay ahaydaanay uu wadanku uu ictiraafkii in yar u jiro maadaama uu ka hadlay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxay kamid ahayd qodobada uu ka hadlay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi khudbadda madaxweynuhu aniga waxay iga muuqataa khudbad aad iyo aad u qiimo badan loona baahnaa waqtigeegiina soo beegantay waxa uu ka hadlayna waxay ahayd wax si fiican inoo khuseeya caalamkana indhihiisa inagu soo jeedinaya waan ku hambalyeynaya waxaana loo baahan yahay halka in hore looga sii qaado insha Allah waxaan ku rajo weynahay in uu insha Allah uu guul ka soo gaaro safarkiisaas badda uu ka jeediyay Heritage Foundation waxay ahayd khudbad iib geynaysa qadiyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay horumarka ay sameysay Soomaaliland muddada 30 sano ay jirto hadday noqoto xagga amniga xagga waxbarashada caafimaadka xagga doorashooyinka maadaama guud ahaan dalka uu ku talaabsaday nidaamka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda marka madaxweynaha khudbadiisa waxaan oran karaa waa mid ku iib geynayay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo oo aan hore Soomaaliland u soo marin inuu talaabo dheer buu qaaday oo waxa weeyaan markii hore waxaan lahaa meelahan soka meel kale oo u sii dhaafaaba ma jirto marka halkii loo socdo tagay waxaan u arkaa fursad aad u qaali oo u baahan in laga faa'iideysto madaxweynahana waan ku faraxsanahay inuu tagay Mareykankii waan ku faraxsanahay waayo wuxuu bay noo soo kordhaya wax inagama dhacayaan qodobadii uu ka hadlay madaxweynuhu qodobka ugu muhiimsan waxa weeye qiimaha istiraatiijiyadda horta dhulka aynu ku noolno Soomaaliland ilaahay dhigay ee istiraatiijiyadda caalamiga inay meel caalamiga qiimo weyn u leh Soomaaliland iyo Soomaaliya iyaduna waxa weeyaan uu ka hadlay wuxuu yiri isku soo noqon mayno waxaan taageeraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Mareykanka joogo khudbadiisii si fiican baan taageeraynaa aniga oo dhashay deegaanka Seylac si fiican baan taageeraynaa cudud iyo xoog iyo kartiba Soomaaliya wax naga khuseeya ma jirto anigu Soomaaliland tarbaana waxyaabo badan noo fufuri doonto dalkana ay horumar gaarsiin karto waxaana aad iyo aad u sii qurux badnayd oo eray ka soo baxay oo aan madaxweynaha ka maqlayo in su'aashii la weydiiyay ahayd waxay nagmaysan jiray Ingiriiska annaga iyo iniga waxa nagmaysan jiray Ingiriiska wili moogta marka
waxa weeyaan baawar bay yeesheen markii dambe waddankan Mareykan inaguna haddaynu saa u wadno oo madaxweynuhu khudbadihiisa hadalladii ku jiray aynu saa u wadno waxay aad iyo aad u eg tahay inay inaguna baawar noqon doono mustaqbalka. halkan waxaan ku faraxsanahay maanta inaan farxad weyn oo maanta madaxweynahaygii oo maanta ka qayb galay shir weynihii Mareykan waxaan leeyahay maanta qadiyad baa halkan soo istaajisay insha Allah waxaan rabnaa on intaas u dhidideynaa inaanu helo xorriyadeeda madax bannaanideeda halkan waxa ka salaamaya mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ku leeyahay inta jirta iyo in ka badan jir madaxweyne insha Allah maanta halkan aan taaganahay waa qadiyadayada Soomaaliland waana soo dhaweynaya madaxweyne markaagina waa soo dhaweynaa madaxweyne horta waa guul fiican oo sharaf leh waayo waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland wax shuruudaha kale oo dhan way buuxisay dhammaan wixii dawlad lahayd oo dhan way buuxisay nabadgelyo ka jirta lacag gaar ay leedahay baarlamaan doorasho ku yimid bay leedahay madaxweyne doorasho ku yimid bay leedahay shuruudaha inta madaxweynaha isbedelay oo cod isku bedelay waa wadan dhameystiran ay ka dhiman tahay in la ictiraafo runtiina madaxweynaha iyo maamulkuna ilaa kuwii ku horeeyay dadaal bay ugu jiraan inay maxay Soomaaliland la ictiraafo oo loo dadaalo meel walba albaab kasta la garaaco tana Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi ku kacay maxay uu tagay aad boorta ugu mahadsan yahay dadaal fiicanna weeyaan oo wax lagu majiirto waxaan Ilaahay ka rajaynayaa runtii inay waxa uu loo dadaalayaba la helo guusheeda la helo ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa ta kale madaxweynuhu kulli waa safiirro badan iyo safiirro fiican magacaabay safiirkan iminka Mareykan ku hagaya waa nin reer Awdala Bashiir Sheekh Cumar Good runtiina dadaal fiican keenay waxaan aaminsanaan lahaa hadii safiirrada reer Awdal saamiga loo yar badiyo inay wax badan suurtagal lahayd baan aaminsanaan lahaa hadii aan ka hadlo khudbadda madaxweynuhu ka jeediyay Soomaaliland Mareykan oo khudbad waxaan leeyahay halkii u baahneed la dhigay waayo wax run ah oo aynu iibinaynay ayaa madaxweynuhu halka ka jeediyay annaga Soomaaliland wada go'aantay waayo wax ay noo qabatay iyo waxa tii hordheeshay waan ugu garanayna Soomaaliland waxa la anigu wanaagina jecelahay hadii aad wanaagayga jeclaan weydaan taadar wala isku qodi ninka u darantahay iska u taala madaxweynaha waxaan leenahay khayr Allah ku siiyo halka dadaal ka sii waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.